bismillahi raxmaani raxiim waxaan nasiib u yeelanay maanta in aan waraysi magaalada Oslo kula kulanno xildhibaan Soomaaliyeed oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dalka Norway kaas oo xildhibaan ka ah magaalada Kristiansand dalka Norway magaalada madaxda saddexaad xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Calas waxa sharafna inaan maanta nagu qaabishid magaalada Oslo marka hore noogu waran safarkaaga magaalada Oslo iyo xildhibaannimadaada iyo sida ay u saameyso Soomaalida ee wadanka Norway horta marka ugu horeysahay waa mahadsan tahay sida sharafta leh aad idinkuna aad ii qaabisheen waa sax anigu waxaan ahay xildhibaan haddana waxaan magaaladan Oslo u yimid maadaama lagu jiro waqtiga fasaxyada ayaan soo kaxeeyay carruurtayda isla markaana rajeynaya inaan xitaa safar aynu sii dhaqaaqno oo sii tagno waddanka Sweden halkaas baan doonayaa inaan ka qayb galo shir ka dhacaya maalinta Sabtida oo rajeynayo inuu si wanaagsan ku dhamaado marka ay noqoto xildhibaannimada iyo dhanka Soomaalida xiriirka ka dhaxeeya horta waa sax maartay anigu waxaan ahay maadaama anigu aan qof Soomaaliyeed arrin kasta ee Soomaalidu ay leedahay waa mid aniga i taabanaysa waa mid i saameynaysa waa mid ku xiran maxay leeyahay wadikii wadadkii walaalahaygi waxaan marka horta farxad weyn oo ah haddana aniga Soomaaliyeed maanta wadankana waa ka muuqanaa xumaan iyo wanaag inta waa ka muuqanaa xumaan iyo wanaag sababtoo ah dhinaca wanaagga markay noqotahay waxaa badanaya ama soo batay dadka siyaasiyiinta waxaan ku badanay dadka jaamiciyiinta dadka wax bartay dadka shaqaysta xoogsatada dadka businessada kule ka furtay dukaamada makhaayadaha baararka oo taasi waa mid guul ayna ku gaarnay ha ahaato kii dhulka xaqay iyo kii dhakhtarka ahay intaba wallana haddana xumaantiina waa sax oo dadka hadduu badan yahay dhibteeda leedahay waxaa marka muhiim ah in maadaama anaga Soomaalina ay ceebteena is asturno inaynu walaalkeena dhibaataysan gacan siin walaashana dhibaataysan inaynu gacanta ay u baahan tahay aan siin waa mid weligeed jiri jirtay maaha mid cusub maaha waa jirtaa oo dadka Soomaalida ahi waxaan nahay dad 22 sano dagaal wadankooda ka jiray dadka gadaalka yimid ay yihiin dad ama ku dhashay dagaal ama ku soo barbaaray dhibaato badan soo arkay xanuun badan soo arkay ciil badan soo arkay xaq iyo xaq darro intaba ay la soo gudboonaatay marka waa wax cad in la qabsashada wadanka ku adkaanayso waa wax iska muuqda in maaragtay sida ay intay ruuxii maalin uu dagaal ka soo dhaqaaqo maalin ku xigno noqdo qof caadi ee shaqaystay qoslaa way adagta nishal walaalka soo duugay maanta ma qosli karo marka anagii baa nagula baahayay in walaalaheen garab istaagno in aan haddana aan ku dhiirigelino caafimaad haday noqoto inaysan ka xishoon haddii ay noqoto inaysan aqoon haday noqoto in anagii aan aqoon u lehno garab istaagno haddii ay noqoto shaqo baadi goobis haddii ay noqoto in anigu aan la baadi gooto in dadku u hadlayo noqono looyeeradii aan noqono dhakhaatiirtoodii aan noqono makaanigoodii aan noqono ninkii gurigii la dhisi lahaa gurigii la sameyn lahaa aan noqono waa sidii kaliya ay jaaliyadu qiimo ku yeelan karto waa sidii kaliya ay ummadda aan la nool nahayna aan wax ugu faa'iideyn karno anigana ka faa'iideysan karno xildhibaana sanadahan dambe waxaa muuqda in Soomaalida ay ka baxayso forjadii ahayd in macnaha Soomaalida ay yihiin dad mashaqaystayaal inay yihiin inaysan macnaha laba socon siyaasadda dalka ay ku nool yihiin ka jirta iyo waxa guud ahaan ka socda dalka howlaha sida u aragtaa horta walaalo waa mid farxad qof kasta Soomaalida gelinaysa sababtoo ah xilligii ahayd Soomaalida inaan nahay dad mashaqaystayaal oo ka soo baxay xanuunkan anaga keenay maxay qof markuu xanuunsado way markuu talaabta qaadaa markuu ciishoodo oo markuu wax uu u maleynay inay adag yihiin uu sameyn karo laakiin wali dhibaatadan haysato wali waxay tahay tusaale ahaan ardayda dugsiga sare noo dhigatahay Soomaalida asalkooda ay tahay ama Norwegian hadana inta ku dhashaan ama ayagoo soo yimaadaan waxa yar dadka ku baasa dugsiga sare
ee dhammaystiran inta badan dhexay kaga tagaan waa mid marka loo baahan yahay annagii haddaan waalidkii nahay haddaan walaalihii nahay aynu talaab ka qaadno annagoo wada jira maxaa yeelay haddii wiilasheennii boqolkiiba boqol aysan dugsiga sare dhammaystirin macnaheedu waxaa weeye boqolkiiba boqol jaamacadihiina ka soo bixin maayaan annaga waa markii xilna saaran wey iskuulkii waddankii baana siiyey aan degana macallinkii waddankii baana siiyey buuggii waxaana siiyey waddankii waxbarashadii waa mid annaga naga la rabo inaan ilmaheennii ku dhiirigelino inay wax bartaan labo waxaa jira in carruur badani ama haween badani ay la soo gudboonaatay in dhowr jeer ilmahoodii laga qaato in ay isqabsadaan ayaga iyo xafiiskii xanaanada maadinta carruurta tan naga maqan marka waxaa weeye in annagii aynu isku dayno inaynu aasaasno iskuulkii waxbarashada waalidka macnaheedu waxaa weeye ama reer soomaaliyeedii ay qaataan kooraskii ahaa sidii ay u hayn lahayn carruur aysan dhalin macnaheedu waxaa weeye marka haddii hooyo ay xanuunsato ilmaheedii maahan in qof kale loo geeyo qof soomaaliyeed baa loo geyn karaa laakiin waxaa naga maqan kooraskii waxaa naga maqan shahaadadii caddaynaysay in aynu xilkaasi ka soo bixi karno labo waxaa muhiima hooyooyinkii soomaaliyeed ee taasi la soo gudboonaatay in la garab istaago in loo sharxo sharcigii in dadkiina lagala hadlo ayagiina lala hadlo marka walaalo waa runtaa oo sidii hore waa dhaannaa laakiin meeshii la rabay weli ma aynan gaarin ugu dambeyn xildhibaane marka aan kasoo gudubno siyaasadda Norway iyo Soomaalida ku nool iyo howlahaas oo dhan haddaan ku noolano wadankii aan asal ahaan kasoo jeednay maadaama xildhibaan tahay waxaan qiyaasahay inaad la socotid siyaasadda halkaas ka jirta iyo isbedelada maxaa ka dhilayd arrintaas horta abuu warta maxaa yeelay Soomaaliya arrinkeeda waa mid qof kasta oo Soomaaliya u dhigto ku hayo meel kasta oo dunka joogay waxaana maanta dhigi karaa waxay tahay in marxaladda Soomaaliya ay joogto maanta ay tahay ugu wanaagsanayd gaari lahayd mid waa dhinaca dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ka jirta waa dawladda ugu horeysay ee muujisa in ay doonayaan inay talaabta xaq ah ay qaadaan dhinac kasta ha noqoto waa dawladda anagu waxaan rabnaa in ummadii aan isku keenno walaalaheena ay wadankii maamushaan annaguna aynu hogaamino intii laga helaayay cid kale ee noogu wanaagsan ee hogaamin karto inta meel laga helaayay ma jirto oo mid ay Soomaaliya u soo baabaaday oo mid ay Soomaaliya u soo dhibaatootay waana muhiim Soomaaliya haddaan nahay in anagu aynu garab istaagno inaynu gacan siino awoodeen cilmigeen dhaqaalaheena tusaalaha waxaa muhiim ah in jaaliyad walba wadan alla wadanka ay ku nool yihiin ay la shaqeeyaan dawladooda wadankaas ka jirtaahay oo ay u furaan albaabada dawladda Soomaaliya ururada Soomaaliya jaamacadaha Soomaaliya caafimaadka Soomaaliya waxaan noqoto maaragtay tii dhulka waxaan noqoto tii cirka wasaaradda Soomaaliya ka jirta in albaabka loo furo la yiraahdo maaragtay wasaaraddan waxaan u baahnaa gacan siisaan in la garab istaago in koorso dad loo siiyo waxbarasho la siiyo in dhaqaale la siiyo maxaa la wadan u baahan in la dhiso waana saxo maaragtay kale Soomaaliya in dhowr iyo 20 sano ay soo dhimanaysaa laakiin waxa hore loo yiri Soomaali waad baabiin kartaa laakiin Soomaaliya ma baabiin kartaa marka Soomaaliya baabiin mayso inta anaga noo haddii aan raacsano su'aasha ugu dambeysay xildhibaan maadaama aad tahay xildhibaan Norweji ah ma laga yaabaa inaad ka qayb qaadato siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka horta koowi dadka walaalahayga ee maamulka waa ku kalsoonahay waxaan kaloo ku kalsoonahay walaalahayga kale Soomaalida ah ee safka iiga horeeya ee diyaar ku ah inay tartanka galaan waan ku kalsoonahay haddii ay noqoto in ay soo baxdo maalin in anigii aan diyaar u ahay inaan wadankayga gacan siiyo oo aan qayb ka qaato oo aan kartida walaalahayga Soomaaliyeed ay muujiyeen maanta ay iga soo baxdo maxay ninkii door biday inuu wadankii joogo inuu dhiso meeshuu kaga digi lahaa waa in aan iga karti badan marka haddii taasi iga soo baxdo maalin oo aan kartidaas yeesho ha
diyaar baan laakiin maantadan la joogo waxaan leeyahay walaalkayga kartida leh ee waddanka maamulo ee presidentaha ama ra'iisul wasaaraha wasiirka askariga waardiyaha kan dhulka xaaqa kan maaragtay mushaar la'aan ku shaqeeya waa mahadsantiin sida sharafta leh dhiigiina iyo waqtigiina ugu hurteen waddanka waa mahadsantahay xildhibaan calas هذا ما صدق. هذا